6 saacadood oo xiriir ah albaabka fila Soomaaliya waxaa ka dagaalamaya al-shabaab dabeeqadii asbuucii la soo dhaafay. weerarkan wuxuu ku soo aaday xilli uu baarlamaanka Soomaaliya ka doodayo sharciga doorashada ee 2020. madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeysanaya inay dhici karto doorasho qof iyo cod ah taasoo u baahan amni buuxa, dhamaystirka dastuurka, tirkoob bulsho, xaqiijinta jinsiyadda qofka Soomaaliga ah iyo heshiis siyaasadeed loo dhan yahay. weerarkii lagu qaaday Israa'iil oo dhowr tilaabo u jira fila Soomaaliya ayaa hadalka ku xiray dad badan oo ila toosneed qadiyadda madaxweynaha ee qof iyo cod. ogaada maalinta la dhihi jiray muxuu ahaa Johor lagu qabanayo in Johor la soo doortay Hirshabelle maalintii 5 gooran maalintii aan xamar iyo Johor aan ka dhax muxuu baabuurkii ku maray maanta qadar intii maray kartid afgooy sidaas ku aadaa qatar maanta marka waa adag tahay been in loo sheego qaranka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed been in loo sheego sax ma doorasho hal qof iyo hal cod ah meesha laga qabanayo meel madaxtooyada irdeeda la isku tooganayo meesha laga qabanayo xagee ku taala haddii ka warna askarta ilaalinaysa jooyinka inta la iska soo dhigo shacabka la laayay ka war shacabka ii soo baxay waa kee hoteeladii lagu ammaan ilaa shacabka soo baxaya waay oo doorasho soo aaday oo fiilo galay oo saf dheer galay xagee waay oo kadibna askar oo labisan dhinacayda ay ka ilaalinaysa yaa waay ilaan madaxtooyadii iyo SYL inta ka dhaxaysa ciidan laba ciidan oo cadu isku noolaayeen runta ma ka hadalno dalkan doorasho hal qof iyo hal cod kama dhici karto. xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ayaa shalay loo diiday inay ciidankooda ku dhawaadaan aagga madaxtooyada kadib weerarkii 10kii bishan lagu qaaday hotel ku yaala albaabka fila Soomaaliya. tani waxay abuurtay dood hor leh oo la xiriirta xaaladda amni iyo damaca madaxweynaha oo u muuqda kuwa isdiidaya. waxaan u malaynayaa saakay markaan baarlamaanka imaanaynay daliil cad bay u tahay dalkan xaaladiisu meeshay marayso kuma noolin Jupiterka iyo Mariska samadaha kore kuma noolin dalkan dhulkiisaan ku noolna saaka ciidamadii waxaa la iskaga soo reebay meesha u dambaysa meeshii Soomaaliya la rabay inay u amni badato oo maaragtay cabsi ka jirta awgeed waxaa guddiga dadka faaqida siyaasadda Soomaaliya waxa ay leeyihiin waa dood ballaaran in 3 sano kadib uu madaxweyne Farmaajo la tacaalaya ammaanka halka uu degan yahay xilli sidoo kalena uu maanka ku hayo inuu qabto doorasho dadweyne.